gudoomiyaha golaha guurtada Soomaaliland Mudane Salebaan Maxamuud Aadan ayaa la filayaa in uu dhawaan baneeyo oo uu iska casilo xilka gudoomiyenimo ee golaha guurtada sida ilo xogagaal oo lagu kalsoonaan kara ay u xaqiijiyeen wargeyska Waabari oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha Salebaan ayaa go'aansaday in uu dabayaaqada sanadkan gaar ahaan bisha December uu iskaga tago xilka gudoomiyenimo ee golaha guurtada Soomaaliland. Mudane Salebaan Maxamuud Aadan oo xilka gudoomiyenimo ee golahaasi soo hayay muddo 14 sano ah ayaa ilaa hadda aan si rasmi ah loo cadeynin sababaha uu baneynayo kursigaasi, balse sida ay ilo wareeradu xaqiijinayaan ayaa sheegaya in gudoomiyuhu kursigaasi u baneynayo arrimo shakhsi ah oo isaga u gaar ah iyo khilaafaad soo noqnoqday oo muddooyinkii u dambeeyay soo kala dhaxgalay isaga iyo odayaasha guurtida oo qaar ka mid ah ay hore ugu hanjabeen in ay xilka ka qaadi doonaan. Wararka kale ayaa intaasi ku daraya in aanay isku sanbanaaneen xukuumadda hadda jirta iyo gudoomiyaha golaha guurtada Soomaaliland, taas oo iyaduna qayb ka noqon karta waxyaabaha soo dedejiyay go'aanka uu xilka gudoomiyenimo ku baneynayo Mudane Salebaan Maxamuud Aadan. Golaha guurtada Soomaaliland ayaa inta badan loo soo jeediyaa dhaliilo la xidhiidha gudasho la'aan dhinaca hawlaha qaran ee shacabka u hayaan, waxaana gudoomiye Salebaan si gaar ah loogu dhaliilaa in uu golaha guurtada ka dhigay mid dhaxaltooyo ah oo la iska dhaxlo kuraasta ka banaanaada golahaasi iyo weliba inuu sidoo kale aad uga gaabiyo xalinta iyo dejinta deegaanada ay ka taagan yihiin colaaduhu. Dhawaan golaha guurtada waxaa gilgilay khilaaf xoogan kadib markii la sheegay in mudanayaal door ay codsadeen in wax ka bedel lagu sameeyo xoroosaadka golaha, laakiin gudoomiyaha Salebaan ayaa qodobkaasi ka saaray ajandaha, taas oo buuq ka dhashay loo saaray guddi kala metelaysa mudanayaasha iyo shirgudoonka golaha. Gudoomiyaha ayaa mar uu la hadlayay xildhibaanada ku hanjabay in golaha guurtada la kala diri doono haddii khilaaf noocan ay ka istaano xilli mudanayaashu ay si xoogan uga cadhoodeen in xalinta dagaalka ceel afeen loo diray ergooyin qeybaha kala duwan ee bulshada laga soo ururiyay, taas oo ay u arkeen in ay gaabis ku yimid shaqadoodii.